Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa qabsaday in sharoobada loo yaqaan Ibugesic ee loo isticmaalo carruurta qanjabiyaan ah ay ku jiraan quruurax ama waxyaabo ka samaysan dhalo. Waxaan maanta isu taagaynaa barnaamijkaas iyo ka hadalkiisa insha'allh. Haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro fadlan inoo saar like si dad badan oo bulshada ka mid ah oo u gaaro. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada gaar ahaan Facebook aad u qabsaday sawirro ama muuqaallo laga soo duubay sharoobada Ibugesic oo dadku ay tijaabinayaan, qaarkoodna ay leeyihiin waxaan ka helnay waxyaabo quruuraxa oo loo maleeyay dhalooyin meesha lagu soo jajabiyey, qaarkoodna ay leeyihiin waxba kama jiraan. Haddaba waxaan rabnaa inaan maanta aan uga hadalno si cilmiyeysan barnaamijkaas iyo wixii la xiriira. Marnaba kama hadli doono muuqaaladaas iyo wixii ay ahaayeen iyo qorshihii loo gol lahaa iyo wixii loola jeeday, laakiin waxaan ka hadlaynaa sharoobada qudhiida waxyaabaha ay ka kooban tahay ama componentiga daawada halkaas ku jirta. Marka ugu horreeya sharoobada Ibugesic waa sharoobo laba nooc oo daawo isugu jirta. Nooca koowaad oo ah qanjabiye iyo nooca labaad oo ah daawo aydan loogu talagalay xanuun baabiye. Paracetamol iyo waxay ka kooban tahay maado kale oo la yiraahdo ibuprofen. Sharoobada Ibugesic paracetamol sida caadiga waa qanjabiye, xanuun baabiyena waa ibuprofen waay. Intaa markaan ka soo gudubno waxaan haddana ogaanaynaa in labada maado midna paracetamol ay tahay midna Ibugesic ay tahay ay chemical ahaan ama falgal ahaan ay kala duwan yihiin. Maadada paracetamolka qanjabiyaha ah waxaa la sheegaa in haddii biyaha lagu daro ay ku milanto biyaha, waxaana afka qalaad loo yiraahdaa haddii chemistry ahaan loo fiirsho waa polar ama biyaha ay ku milmi kartaa. Laakiin maadada loo yaqaano ibuprofenta waxaa la yiraahdaa waa maado aan biyaha si fudud ugu milmi karin, waxaana loo yaqaanaa chemistry ahaan non polar, taasi oo ka dhigan inaysan si fudud biyaha ugu milmi karin. Waxa badan aad aragteen in muuqaalada la soo duubayay markii lagu shubo meesha yacni shabaqa oo kale ama bahalka miiraha ay soo harayeen waxyaabo u eg dhalooyin. Taasina waxay ka dhigan tahay in labada maado aysan isku samayn wax aad heshana, laakiin ay mid walba guulida u taagneed. Ibuprofenta oo kale waxyaabaha meesha ka muuqday waxay u ekaayeen maadooyinkaasi heesiga leh in ay ahaayeen daawada ibuprofenta. Laakiin waxaa cajiiba in dadkii wax soo bandhigayay uusan ku jirin qof waxyaabahaas inta soo qaata isku baroobeeya bal inay qali karaan ama korkiisa jeexi karaan. Ilaa hadda kama hayno. Waxaan ka codsanaynaa dadka soo duuba muuqaalaas inay noo soo geliyaan mar kale iyagoo muujinaya in waxyaabahaasi jirkooda qali karaan. Su-aasha kale isweydiinta ayaa ah in maadadan ama daawadan la isticmaali jiray muddooyin fog ama sanado fog hor loo soo isticmaali jiray, wax caqabad ah oo lagala soo kulmo oo la sheegana aysan jirin marka laga soo tago war suuqa hadda magaalka ku jira ee ah in maadada ama sharoobadan ay ku jiraan dhalooyin. Waxaan ogaanay in sharoobadan ay ka kooban tahay labada maado ee paracetamol iyo ibuprofen. Labada maadaba ay kala dhaqan duwan yihiin marka loo fiirsho habka milanka, oo maadada ibuprofen ay tahay maado aan si fudud ku milmi karin, halka maadada paracetamolka ay tahay maado milankeedu dhow yahay. Taasi ayaana ka dhigayda in sharoobadu isheesigeed oo bato. Waxaa kaloo ayadana jira sharoobooyin badan oo aan tan aan ahayn oo ayagana sidaa oo kale weliba iyo qaab ka sii daranba ay u muuqan karto haddii macnaha la fiiriyo ama la miiro. Laakiin waxaad mooddaa in dadkaynu ay badankood qaab hayin raacnimo ah ay wax u samaynayaan. Inta ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena Xogocafimad. Waana ku mahadsantihiin.